waa kulan si cilmiyeysan loogu falaqaynayo takoorka bulshada Soomaaliyeed ay ku hayaan beelaha gabooyaha. kulankan oo ciwaan looga dhigay hilinka jannada haybman lagu galaa iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay jiraan barnaamijyo lagaga hadlayo sidii loo dabar jari lahaa dhaqankan xun ee soo jireenka ah ayaa kulankina isna ay soo qaban qaabiyeen ururka khayriga ee Gogla Gurigaaga Aakhiro waxaana ka qayb qaadanaya dood cilmiyeedkan maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco gudoomiyaasha jaamacadaha culimo abwaano macallimiin iyo haldoorka beelaha gabooye xaqiiqatan xubnaha Gogla Gurigaaga Aakhiro isma weydiiyaan adduunka intaynu joogno maxaynu yeelnaa laakiin anagu waxa aan isweydiinaa markastana bulshada aanu ku baraarujinaa marjac aynu noqonayno ee la hubo inaynu dhammaanteen tagayno maxaynu la tagnaa madax iyo minjo maamooyin iyo dhalinyaro waxaan la hor istaagnaa maanta waa adduunyo birina waa aakhiro walaalayaal nabigeena maxamed cali salaatu wasalaam wuxuu qofka islaamka markasta xasuusnaada geerida la yaanay ka libdhe Gogla Gurigaaga Aakhiro markaan anagu magacaan qaadanay waxaan ugu talagalnay inuu qofku ku xasuusto marjaca dambe ee aynu noqonayno maanta intaynu halkan joogno waxay nala jooga saaxiib waxay nala jooga walaal waxay nala jooga ehel laakiin waxaynu ognahay maalimaha kamida qofka dadka inoogu jecel intiina qaado inuu qabriga ina geynayo inaga imanayo hadii halka aynu tagno saaxiibina ma soo booqanayo walaalna inooma imanayo hooyo iyo aabana inooma imanayso taas ayaan anu markasta jecelnahay oo aan xasuusinaa walaalayaal hadii aan u soo noqdo barnaamijkan hilinka jannada hayb ma lagu galaa waa su'aal aan doonayo qof kasta oo luuqadayda fahmaya inuu naftiisa weydiiyo adduunkan aynu saaranahay waxa ka jira dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinka waxa ka ah in ay dadkeenu moodeen mansabkiya iyo qabaa'ilka وإلهينا لي لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا شيء يجور رسالة هذا القرآن كأنه قد يارسي إن قبيل يحيب له قلا دولان كان عن بلوني هذا نهاي Gogla Gurigaaga Aakhiro waxaanu garab istaag cad ugu muujinaynaa aan waliba ugu muujinaynaa anagoo ku duulina shariica islaamiga anagoo kitaabkeena quraankeena raacayna beela kamida beelaha Somaliland dega ama ummadda Soomaalida oo dhan degaan la ah hadana aynu duudsinay xuquuqdoodii ma garanayo waxaan ku duudsinay saddex mid diinteena way ilaalisay waxay ilaalisay naftaada maalkaaga iyo cirdigaaga markaas barnaamijkan saas ayaan ugu kaliftay barnaamijkan anagu kama eegayno dadka badan meelaha ay ka eegeen laakiin anagu waxaanu hogaamin uga dhignay kitaabkeena waayo ilaahay agtiisa waxaynu ku leenahay waxaan adduunka ka shaqeysano taas un baa wax noo jaraysa maanta adduunka hantidan haysana ayaynu ku doonanaa waxa aynu doonayno laakiin الله سبحانه وتعالى مركا إنه هو استغنى كلية تمالمه إنه نولين وحي إنه سوق بسنة وحي إنه جيان بينه لنا هاي تاسنا مركز توين حسوسنا ولا ليال Gogla Gurigaaga Aakhiro waxay markasta u taaganta hay in ay baraarujiso ummadda islaamka ah barnaamijkan ma noqon doono kii u horeeyay aan qabano ama aan iclaamino waxa sidoo kale aanu iclaamin doonaa barnaamijyo badan oo aanu gobolka ku soo kordhinayno khaasatan bulshada aanu ku soo kordhinayno kaas oo caaw qaar kamid ah ka sheegi doono oo kamid yahay barnaamijka kiilo ku kaalmee walaalka oo aan ugu talagalnay inay 10 reer ama 15 reer ee dariska ay ogaadaan saddexda reer ee ku dexdayacan iyagoo aan uga soo qaadeen bakhaarka alaabe hooy walba hooyadu marka ay keentaan ugu talagalnay in ay kafaalo qaadato 2 qof ama 3 qof oo inta xaafadu ay mas'uuliyadooda yeelato markasta waxa naga go'an in aanu bulshada ku soo celino ama aan tusno tacaawinka iyo qiimaha uu leeyahay markasta waxa naga go'an halkii aan u aragno in ay dhibaato ka taagan tahay in aanu ka qayb qaadano barnaamij aad u qiimo badan barnaamijkan ururku inoo soo agaasimay waxaana barnaamijkan uu dabada ku haya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam heebsoocu dhibaatada uu leeyahay anu waxaan ahay Jimcaale Maxamed Xaashi si aan isku taariifiyo waxaan ka soo jeedaa beelaha loo qabtay caawa dooda kuwaas aan taanu kamid ah si aan isku fahanno horta heebsooc waxay noogu filan dhibaatada uu leeyahay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka waxa dambiba ugu filanba an yaxqira akhahu almuslim
walaalkiisa muslimka inuu xaqiraad dambi ugu filan amba tuko amba xajka ku noqnoqo amba masaajida dhis haddaad heebsoco qaybun ka tahay qalbigaaga wax ku jiro adeer dambi intaasaa kugu filan baa nabi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam hadalka nabigu waa dhab soo maaha yaa hadalka nabigu waa dhab soo maaha laanna nabigu waxyi buu ku hadlayay calayhi salaatu wasalaam markaa heebsoc haddii lasoo ururiyo dhibaatadiisa intaasaabay noogu filan dadkan annagu aan ka soo jeedno dhibaatada heebsoocu uu ku haya waxaa ka mid a dadkan waxaa ku dhacay xukun dembiga lagu xukumayna lama garanayo xukunku muddada la xukumayna lama garanayo qofku marka maxkamadda la geeyo uu dembi galo dee xeerilaantu waxay akhrisaa qofku dembigu galay garsoorkuna wuxuu xukunkaa muddo u yeelaa dadkan waa la xukumay xukunkaa dembi ay ku mutaysteen lama garanayo muddona ma laha berigi hore waxaa la odhan jiray dadkan dhibaatada haysata waxaa ka mid a waxma bartaan shaqooyin liitay ka shaqeeyaan dee waanu barannay diin iyo maadiba baranaya daastan waxay taagan yihin haggee wax ka qaldan yihin waar diini wuxuu imaanaha waala mise cadan baa laga haysayaa dhalinyarta maanta soo baxday beelahan gabooyo ka mid a masaajidii tujiyana waa imaamiyo qaar baa xufaad qur-aana diin iyo maadiba way barteen horta taasi adar way soo dhammaato mar dambe waxma barataan idinku baa ogto markhaati baa ka tihin taasi socon weyd waxaa la odhan jiray shaqooyin hoose ka shaqeeyaanoo birtay tumaano waa ra'iislayaal orda hargeysa tag 70% ra'iiska hargeysa ka furan isaaq baa leh waa ra'iiska niqaaba nin walba laba Ethiopian soo kaxaystay ra'iiska uu furtay lacagtii uu habeenkii guraya gaari beer soo habeenkii gaariga ra'iiska la soo hordhigaya xabashiga loo yeedhay xisaabta laga xidhaya waa la tagaya ka waxa la fadhiya hodhirada waaweyn aasal ugu leeyahay waa midkii waa gabooy oo soodiga ba soo qaatay ma soo cunay taana horta de ra'iiska imika waaba lagu tartamaya booyadaha xaarka qaada anagu lacag aanu siisanaba ma haysanay idinka horta idinka gura waxa booyo shaqeynaysa hargeysa ma walba idinka leh xashiishkii la gurayay la isku haystay wadinka arko habeenkii waxa wada niqaabanay suuqa xaaraya in muraad qoray boqolkii waa idinka anaga midmidii laba naga jirta waana waxaan ku soo koobay arbaashi waa la qaybsado shaqooyinkan hayna lacag midhan bay noqdeen waa la ogaaday hal qodobo maanta jiray waxa weeyaan waa tii guurkiye inaad hablaha noogu dar waxa naga daaya wallahi ninka jimcaale la yiraahdo biigo qosliyaan waa ka mafsuuday eeyadiisa waana runtiisii wax badan oo meesha ku jira hadaan xaqiiqada la isaga sheegin iyo waxba ma hagaagaan horta dawladda hoose loo xogeeyay dawladda hoose lahayo shaqaalaha dawladda hoose iyo nidaamkooda iyo shaqadooda iyo wixii noocaas ahaa ee marka hore loo oran jiray gabooyaha la maanta waa run dadka kala uga badan ana ku marqaati furo jimcaale shaqadooda sideedaba ceeb ma lahe deebaashi waa la ilbaxo bariga si yaro badanimo baa loo turjuman jiray deebaashi waxa loo ogaaday deebaashi noocan baa ugu wanaagsan halkan ay ku jirtaa loo ogaaday waxa la sheegi jiray waxa la yiri nin baa jidda bariga hore Sacuudi Arabia loo dhoofay ayaan baa wuxuu ka xal jiray boodan saxarada gurtee wuxuu sheegay jimcaale nuugta ayuu gurto markaa meel baa la sugu iman jiray guri baa la sugu iman jiray waa maxad ka shaqeysaa waxa aad midii waa waxa ka shaqeey booda ninkii wala kala tibay gabiisiba wanaga baxbaa la guriga ninkaas wuxuu meesha sheegay magacayga midleeyahay horta baashi waa ceeb weeye ma aha shaqadii horta shaqadu waa shaqo taasi waa qolol jannadana waa rulo hayb laguma galo nin walba wuxuu shaqaysto ku gaa waa taa marka qofka xabaasha lagu rido loo oranayo maanta aabaha iyo hooyada toona halka kulama joogan walaalka kulama joogo saaxiibka kulama joogo maxay baa kula jooga amalkaaga shaqayso qof walbana halkaas ah haybtu waa waxa aad fol ilaahina subhanahu wa ta'ala quraankiisa intii ku sheegay in la dhaafiyo maaha oo inta lagu kooba oo aan la taarafun wax ka badan la samaynin tamhiimadu waa taa waxaan uga gudbayaa ururkan barnaamijkan loo soo diyaariyay quruxda badan la caaw gogol gurigaaga akhiro nimco wadayga ka tahay waxaan halkan caaw marxaati uga furaynaa waan uga sheegaynaa xanuunkii COVID-19 xilligii uu bilaabmay horta xanuunkaasi muu tagin ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay naga kaxay
wuu yaraaday mooyaane weli yaan loo qaadanin wacyigelintiisii dadaalkiisii wixii oo dhan wayna dul taagay oo wayna wiigii dhaweyto mas-uuliyiin ka mida dowladda ayuu ku dhacay xanuunku oo weliba laascaanood waxba inoo jirin uu ku dhaco laga helay marka xanuunkii muu tegine waxaanu codsanaynaa dhalinyarta iyo dadweynaha reer Burco iyo gobolkaba ka codsanaynaa in aynu wacyigelinteennii iyo dadaalkeennii halkii ka wadno oo aynaan isdhigan taas waa qodobka labaad waxaan idiin sheegayaa ururkan dhalinyarta ee la yidhaahdo goglo gurigaaga aakhiro wuxuu ka mid yahay ururadii nagala qayb qaatay ee nagala shaqeeyey wacyigelintii faraha badneed xanuunkii COVID-19 markuu bilaabmay ee dalkeenna soo gaadhay gaar ahaan magaaladeenna waxaan doonayaa dhalinyarta magaalada Burco oo annagana naga go'an in ay iyagu qaybta koowaad ee maanta caawa barnaamijkan la soo diyaariyay haybsooca ku saabsan cidda saari kartaa dhalinyaroy ee hawsha koowaad ka qayb qaadan karta ee ummadda midayn karta ee cusuriyadda inaga saari karta waa dhalinyarta ubaxee soo kortay caawa meesha fadhida aqoontiinu wayna shaqaysaa wixii ladin baray wayna shaqeeyaan haddii qofku ku koobnaado isaga wixii la baray oo uu siraadon ku shaqo tago adigu ku xoogsi tag oo dadka kale uga faa'iideen waayo wixiisu wax weeye hal bacad ugu lisbay noqonaysa laakiin qofka dhalinyarta aqoontu bartay markuu gudbiyo markuu dadka ku wacyigeliyo wuxuu dadka dheeriye markuu baro u sheego ee laga faa'iideysto sadaqadii intii sheegaysa bay noqonaysaa waa xaqiiqo taasina waxaan leenahay aynu ka bilowna caawa koow waxa la yidhaahdaa haybsooca magaaladeena ka saara oo dabadeedna u gudbina dalka intiisa kale aakhirada imika goglo gurigaaga aakhiro kuwaasaa ka mid ah wallaahi xasanaad ka weyn inaanu jirin oo dadka inaan midabto kor ugu kala samayn oo inaan la odhan waa kaa sarreeya oo dadku isku mid haadaan cidda bilaabaysa waa qoladiina imika dhalinyarta ee barnaamijka ka soo shaqaysa tadawurka bini'aadamkuna wuxuu ku xidhan yahay markuu qofku aqoontiisa ka faa'iideeyo waxaan leeyahay oo aan soo dhawaynayaa in dadku isku mid yihiin oo ballan qaado qof kastoo muwaadini inuu walaalkiisa la mid ahay uu la siman yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankeennu inooguma sheego aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inantii wanaagsaneeda qur-aanka inoo furtay iyo tii dambe sadaqada ka hadlaysay waxaa wanaagsan diintaba islaamka caawa waxaan kaloo farxad kale ii noqotayba inan baa qur-aankii inoo bilowday oo siiqad waxaan qur-aankii inoogu bilowday oo aanan runtii hablaha laftooda ee tixgelinta ay leeyihin bay ka mid tahay qur-aankii siiqadiisii la macaansanayay inan baa inoo akhrisay in sidaa loogu dhiirigeliyo oo inantii nebiga lahayd ku saliya calayhi afdalu salaatu wasalaam waa waxyaabaha inoo wanaagsana khayrka ka mid tahay in iyagana la siiyo barnaamijkooda oo la tixgeliyo hadalkooda oo laga faa'iidaysto hablaha waa daruuri aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan filayaa kolley caawa dood badan baa iyo falanqayn badan ayaa la gelayaa halka aqoon-yahan fara badan ayaa inoo fadhiya oo wax badan inaan ka faa'iidno ama wax badan runtii isbedela inaan dareenno insha allahu tacaala ay mudan tahay aayad iyo xadiid aayaddii inantu aynu ku furfurtay qur-aanka xafladeenna aynu ku furfurtay ugu horreysay oo ilaahay inoo ku tilmaamayey inuu ilaahay yaa ayuha nnaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum in allaha caliimun khabiir aayaddaasi waxay noo tilmaamaysaa ilaahay inuu ina abuuray ina ka abuuray lab iyo dhadig ina kana yeelay shucuub shacab ayaa shucuub lagu jamciyey iyo qabaa'il kala duwan oo dabcan qabaa'ilka dahasii kala farcameen laakiin qabaa'ilka waaweyn culummada markay tafsiirayaan wax badan bay ku tafsiiraan qabaa'ilka reer sheekh isxaaq oo kale waa qabaa'il siduu doona ha u farcamo qabaa'ilada kale ee islaamka ama soomaaliyeedna de waa qabaa'il iyo caalamka oo dhanbe marka ilaahay wuxuuna ka dhigay shacab shucuub meel degan iyo qabaa'il kala duwan
wuxuu ilaahay markaa aayadda ku gabagabeeyey inna akramakum cinda allaahi atqaakum idinkoo sidaa ah ayaa haddana kan idinku karaamada badan idinku wanaagsan waxa weeye kan idinku taqwada badan ilaahayna waa og yahay ilaahayna waa caliim oo wax kasta kan og weeye waana khabiir aayaddaasi intaasay noo tilmaamaysaa xadiidka nebiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamayaa isaguna wardadow ilaahiin waa waaxid alaa ina rabbakum waaxid ilaahiin waa waaxid oo waa mid keliya allaha idin abuuray wa ina abaakum waaxid aabbihiinna waa mid keliya oo ah oo aadama waaya wuxuu yidhi nebigu sal allahu calayhi wasalam alaa laa fadla licarabiyin calaa acjamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin walaa lalaxmar cala alaswad walaa aswad cala alaxmar ilaa bitaqwa ilaahin waa waaxid aabbihiinna waa waaxid mana kala fadli badninin haddii aad tihiin kuwiina cas kama fadli badninin kuwa madow kuwa maxay tahay caddaanka ah kuwa kale ee maxay tahay aswadka ah kama fadli badna waxaasi ku kala fadli badan tihiin ilaa bitaqwa weeye waa taqwada ilaahay iminka mashaakil bolosi qaran waxyaalo badan baynu ka yeelanaa laakiin hadii la qadiya arrimaha noocaana dee bolosi qaran lagama laha waa siduu hadda ismaaciil sheegayay dallad u dhisan oo ah ambareelo u dhisan oo dallad u dhisan oo dawliya oo sistema oo nidaama oo ummadda waxaan ka rarta shiikh keligii kama rari karo shiikhu uu hadli mimbar buu ka hadli muxaadaru jeedin wacdi buu jeedin laakiin on yani waa wacyigelin waxaasoo dhimi waa wacyigelin laakiin practical ma nidaam baa rari kara waxaan nabiga calayhi salatu wasalaam markii buu yidhi bidacwa aljaahiliya waana bayna adhurikum anigoo dhexdiinna jooga miyaad dacwadii jaahiliga soo noolaynaysaan ma sidaad waxaa ku noqonaysaan sida ahaydeen anigoo idin dhex jooga how can possible anigoo idin dhex jooga aa ku noqotaan sida hore u ahaydeen ma dhici karto nebigu waa diiday takoorkii inay muhaajiriin iyo ansaar u kala baxaan oo istakooraan oo ay dhahaan muhaajiriinay qaxootiba ahaydeen annaguna ansaar baanu naho madiinaa noogu timaadeen ma adigoo qaxootiyo madiina igu imaad maanta aniga doonaysa inaad inankayga disho may dhicin arrintii marka waxaan u jeednaa waxaa weeye qodobka waxaan ugu samaysanayaa afeef waxaan uga dhigtay iminka masalan mashruuca aidiska maareeyuu leeyahay soo maaha somaliland mar kale waa policy waa political way waa political constitution way waana waxa weeye maxay waa wax dhisan policy qaran waxa laga leeyahay maxay khitaanka fircooniga policy qaran buu galay sidii loo rari lahaa sidii loo policy qaran buu galay takoorku policy qaran ma galay waa maya policy qaran muu gelin يعني olole dawliya miyuu galay maya oo dhaqankii wuxuu leeyahay marka waxaasoo dhami waxay u baahan yihiin waa meelaha dhiman weeye oo culimo keligeed aan waxba ka tari karin aqoon-yahan keliga aan waxba ka tari karin qof indheergaradi keliga aan waxba ka oday waayeel oo dhaqan yaqaan aan waxba ka tari karin masaladu waxay u baahan tahay maanta waxay taagan tahay waa halkuu sheegaya taagantii uu sheegaya deeq waxay taagan tahay bolosi qaran oo arrinta laga leeyahay oo nidaam system waxaan hore u mariya loo baahay bolosiga qaran markaa ma guurkoo keliya anigu ma qabo inuu guurkoo keliya no ma qabo waa shaqooyinkii waa dhaqaalihii waa siyaasaddii waxa weeye dhammaan hay-adihii rayidka ahaa oo dhan waxaasoo dhami way maqan yihiin inay dadkan waxoodii helaan oo iyagii doontaan oo la siiyo oo qualifiedkooda qofka qualified ehliyad waxaan u leh uu galo qofkii ehliyad waxaan u leh oo waxaan hagaajinaya inuu takhasuskan galo oo waxaa loo baahan yahay marka waxaa la intaasaan kusoo koobaya baaraka allah fiikum mawduucan maaha maanta oo kale yaanu naga noqon inaga lafteena yaanu dhidar unkadkeeyaha yaa la noqonin baa ha sii jiro oo culimada ha gaadho anigu waxaan isdhahaa runtii mararka qaarkood culimadeeda laftoodu dee waxbaanu ku leenahay ilaa waa la qirtaa boyntigaage waxbaa lagu door baa lagu leeyahay leanna waxa weeye tadbiiq looma rogin wixii weli lama dabiqin wixii hadal bay weli taagan yihin
hadal bay weli taagay lama dabaqin amal ma gelin shaqo ma gelin wuxuuna shaqo galaan baa fiican barashada kooban magacaygu waxa weeye Sabax Maxamed Nuur waxaan ku dhashay Burco waxaan ku barbaaray Burco waxbarashada Burcan ka bilaabay dugsiga hoose kii dhexe kii jaamacadeed waxaan ka baxay faculty-ga economiga jaamacadda Burco hadda waxaan wadaa masterkii waxaan ka soo jeedaa beesha Gabooyaha aad baan ugu faraxsanahay beeshada waxaan ka mid ahay ganacsatada Burco waxaan aad ugu xumahay aad ugu dhidiya ilaa maalinka aan soo weynaaday aan soo koray oon aqli yeeshay waxaan la soo koray dad waxbarasho hadda halkan waxa jooga dad aan classmate ahayn waxaan ka xumahay marka aan galaaskii aan fadhiyo aan qofkii aqoon kula tartamayo aan maxay aan igu dhaamin qurux igu dhaamin maal igu dhaamin nasab igu dhaamin aqoon xitaa inta baan fiicnan anu aan qaar kaga fiicanahay oo ahdo doonaan qaarna dhamaantood aan qaarna la simanahay qaarna kaga fiicanay gilitaan oo haddana markaan goobsi la fadhiyo ay leeyihiin maamule dawladeed isu duwa dawladeed taliye ku xigeen maxay tahay barisaab ku xigeen maayir ku xigeen ay dawladii ku jiraan aniguna aan wili soo fadhiyo aan maqal waayo maamul kaliya aad xitaa iskuul maamulaya oo aan ku leenahay dawladii mana dhici karto mana aqbalayo maxay tahay aqoon laan bay haysa maanta yarkan taaganay aniga wadi aragtaan master baan maraya dhawaan oo qaljiinaya qaar baa iga sareeyay 3 da ama 4 da 5 da oo haysta xidado beeshii qaar baa xitaa haysta oo dadkayga ma aqbali karayo maamul iskuul bad qaban kar weydeen ma aqbali karayo marka waxaan u maleynayaa halkaas maxay tahay marka haddaan marka ma u maleynayo maxay tahay reer ahaan ama qabiil ahaan gobol ahaan anigu tog dheer hargeysa wax igama gelin tog dheer baan ku nool anigu tog dheer baan ku noolahay sax dhalinyarta tog dheer baan hay ya dhalinyarta tog dheer wax barta baan hay tog dheer dad baa ku nool hargeysa waan ku nool meel kasta waan ku noolnay marka hargeysa qof loo maamulo loo joogta digsanaysan no burca cid joogsan doonayaan sax waan ka xumahay in marka meelaha dad ka muuqanayaan on ka muuqan weyno haddaad idinku aad reernimo iyo magacnimo iyo masabnimo aad ku helaysaan oo annagana gabooyinimo iyo reernimo aan xaqayga aan ku weyno waxa maalin walba barqad runta loogu yarinayo oo runta maxaad u sheegaysaa leeyahay haddii Soomaaliland quruxdeeda la doonayo cadaalad halo sinaado assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan marka hore aad iyo aad ugu hambalyeeynaa ugu mahadnaqayaa ururka la yiraahdo goglo guri aakhiro ururkaasi waxa weeye kelmadaasi macnawiyan waa kelmad waana ah qof walowna waxay tusaysaa muslim ah inuu sahay qaato una sahay qaato aakhiro inuu ilaahay ka baqo fatahawadu fa inna khayra zaada taqwa qof walba inuu sahay qaataa sidoo professor Ismaaciil noo sheegay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibn aadan kan waxa loo keenay inuu ilaahay caabudo acmaasha jannada lagu galaana waa acmaal loo siman yahay carab iyo cajabiba marka labada kelmadood haddii aan ku noqdo debate-kii halkan odayaashu ay ka sheegeen hadday arrintu shariico tahay way noo sheegtay waynu simanahay hadday dhaqaale tahay dhaqaalaha waynu simanahay waxbarashada waynu simanahay suugaanta iyo dhaqankana slide waxa waa jiraan sida uu sheegay deeq imika levelka la joogo iyo levelkii hore farqi weyn baa u dhaxeeya lama qarin karo inantana waxaan u sheegayaa dacwadaada ayaa biilka waxaan u gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi وأكتي إنه قبائل أما سياسيين بدن أو غير سومالنا وحيل سو تاجيهين وحنو دوننا سومالنا لو ذليه هاي بدأ حوينا وحنو مرلبات كعلي لنا بلشدة جابويو وحي دونيان سومالنا لو ذليه هاي مثل قرين كرماها الإمكا سيدا إسماعيل لو شيء أرين تاني ما أرين ويحل كيدو الشريعة كحولن تهاي
oo khilaas ay u baahan tahay yaqiinna u baahan tahay ururkii soo qabanqaabiyey aqoon-yahankii ka soo qayb galay iyo dhammaan marti sharabtaba waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka hore waxaan ka cudur daaranayaa in mutakhasis fi shu'uun shareeca uu fadhiyo goobta oo iga mudan runtii inuu ka hadlo sheekh mawliid oo jooga oo isagu dee shuyuukhdii magaaladana ka mid ah ayaa fadhiya marka la kaftamayaa la odhan jiray meel libaax soo galay lo ma joogayso marka sheekh mawliid baa jooga sida xaqadu tahay waxaa la fadhiyaa sheekhana sheekh ibraahim jaamic oo culimmada magaalada ka mid ah labaduba institutionska waxbarashada ayay runtii ku jiraan waana odayaal culimo ah hawsha magaaladana lafdhabar u ah waxaan rajaynayaa insha allah tacaala in laga faa'iidi doono iyadana waxaa aan marka hore jeclahay inuu mahad celiyo runtii qolihii soo qabanqaabiyey barnaamijkan haddii urur ahaan ay tahay haddii ay qofaf tahayba waa hawl waa xadiidu saaca waa arrin taagan oo ka hadalkiisu aad moodo saacadahan ama maalmahan weliba in aad iyo aad uu fara badan yahay dhinaca kale aad baan uga xumahay waa nabar qof ku yaalla waa midi qof ku taalla oo aad moodo in lagu soo celcelinayo uuna lagu dhaqdhaqaajinayo qofka midida ku taalla ama nabarka ku taalla nabarka ku yaallo waa arrin aad iyo aad runtii murugo u leh in xadiidu saaca arrinku noqdo oo la wado uun diingodgel godgoregel goregodgel goddiingel waa la wadaa uun waxaa manhajkii dowladdii soomaaliya ee kacaanka iskuullada waa lagu dhigan jiray oo manhajku ka mid ahaa waxyaabahani waxna way ka qabteen runtii sida xaqiiqadu tahay wax badan bay ka qabteen 10kii sane hore ee kacaanku jiray wax badan bay ka qabteen oo may suuro gelin runtii in dhaqamada qaar xilligaa la dareemo ama ay jiraan oo bulshada dhexdeeda galaas wada fadhiya arday dhan oo wada fadhidaa inaanay is aqoon qolo walaa qabiil walaa qofku meeshuu ka soo jeedo midna aanu garanayn oo sida iminka qabyaalada loogu maydhay iyo waxyaabaha la midka wax u jiray runtii ma ahayn waa xanuun ilaa dugsiyada hoose dhexe isaga jira iminka marka taa runtii waan ka dardaar warinayaayo xal baa laga fikiraaya mushkilad jirta lama soo celceliyo cidda mas-uulka ah ee mas-uuliyiinta ummadda ah ee bulshada ah oo culimmaduna ay ka mid tahay ayay tahay inay xalkama dambaysa baadi goobaan laakiin haddii laga dhigo maalinba lecture meel laga jeediyo oo xanuunka la habeen maalintii dhawada idinkii arkayay mahdi oo aan aada u garanayay wasiirka qiiradii iyo ilmadii ka timid oo idinkii arkayay marka wixii dee marka dambe waxa way kaanayaan wax lagu raaxaysanayo la soo celceliyo oon runtii waa mushkilad weyn mushkiladaha mujtamac ee haystaa way fara badan yihiin amraad almujtamac alladii naciish maca way fara badan yihiin wax la koobi kara maaha sidaasun baa loo soo celceliyaa iyagana marka anigu dhowr qodob oo kooban baxti dhan baan halkan ku hayaa marka hore waxaan moodayay in dee kolleyba lecture la jeedinayo mas-uuliyiin iyo dad badan baa ka hadlay dad badan oo kalena way sugayaan markaa si yaroo kooban waxyaabaha aan isleeyahay malaa way maqan yihiin oo hore loogama hadal ayaan doonayaa inaan ka hadlo oo tikraar ama repetition inaan sameeyo ma doonayo marka koowaad howlka sida aynu ku fadhinno waxaa muhiim ah marka mushkiladaha aynu ka hadlayno mujtamaca ama xanuunada bulshada haye markaynu ka hadlayno waxaa aada muhiim u ah inaynu horta ka heshiino halbeega inagoon heshiisba ka ahayn halbeegyada inaynu mushkilado jira ka hadallo oo qof weliba halbeeg jeebadda ugu jira uu la soo baxo dabeetana xuluusha la isla fahmi waayo waxa weeye daal uunbay kordhinaysaa waxba ma kordhiso maxaa horta inoo halbeega innaga halkan dad muslimiin aynu nahay
waxaanu ilaahay ugu mahad celinaynaa nimcada islaamka iyo iimaanka ee uu ina siiyey ee aynaan iibsan ee aynaan nasab ku helin ee aynaan qurux ku helin ee aynaan lacag ku bedelan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey nimcadaasi dad badan bay ka maqan tahay waad ogtiin oo adduunyada ka mid ah weliba dadka badankooday ka maqan tahay marka halbeega ay tahay qof kasta oo inaga mida inuu ku dheganaada hadduu ku dheganaan lahaana ay macno samayn lahayd waxa weeye waa shareecada iyo waxyiga rabbi subxaanahu wa tacaala haddii kaasi halbeeg kuu yahay kaama dhacdo kaamana suurowdo inaad waxyaabahan oo kale ictiqaado ama ku dhaqanto marna suuragal ma noqoteen waxaan maanta joogay khudbad uu jeedinayay sheekh mawliid oo halkan fadhiyo salaada ka hadlaya markaasuu wuxuu ka hadlay soo qaatay aayaddii tilmaamaysay salaadu inay reebto maxay alfaxshaa walmunkar wuxuu aad ugu tiiqtiiq uga hadlay waynu wada tukanaa masaajidadiina way buuxaaneen faxshiga magaalada ama waddanka yaalana waad ogtihiin munkarka jirana waad ogtihiin munkarka ugu weyn ee ummadu samaysana waxa weeye tarku tadbiiqu shariicati illaahi tabaaraka wa tacaala munkar ka weyni ma jiro in kitaabkii iyo sharcigii ilaahay loo hoggaansami waayo loogu dhaqmi waayo iyagu ay sharci noo noqon waayaan dee munkar ka weyni ma jiro sida xaqiiqadu tahay waa akbar munkar inala yaala maanta oo hadduu jiri lahaa wax badan aynu xal u heli lahayn marka halbeegaasi wuxuu ina farayaa inaynu fahanno oo muran badan aynaan ka keenin xanuunadayna hayee kanina ka mid yahay waxa dawada u ah waa laga heshiinaya marka qof walibana wuxuu fahmayaa dawadu waxay tahay layga fadhiyey wuxuu ahaa haybsooca iyo dhaqanka marka aanu isha ku eegno cilmi baarisaha iyo sidaas oo kale sidaas oo keligii ah isuma taago waxay la qumanaatay markaa inaan u dhigno dhinacyada uu maaragtay dhaqanka soomaaligu iska taagay haybsooca inaanu ka dhigno bal dhinacyadeebuu iska taagay afeefna waa u horaysiinayaa aniga mawduuca aan qaabilsa la ii diray kuma saabsana mana khuseeyo aragtiyaha iminka taagan ee ku gadaaman xaaladaha siyaasiga iyo isbihinbihinta iyo mujtamac samaysiga iyo view helista waxaanu isku daynaa aniga iyo mawduucaygu in aanu runkudurug samayno lianno annaga laftayadaaba madashatan naga haysataa haybsoocio dee markaanu dhaqankii ahayn hadina loogu dambaysiiyaa waa haybsooc nagu dhacay marka in qudhayda naloo kacaabaan u baahana waayo waxay hayd inaynu diinta ku xigno tiirka labaad sidaas darteed waxaynu bal eegaynaa inaynu jawaabo u helno oo dhaqanka dhexdiisa jawaabo uga helno xaaladaha kan ee soo socda oo u dhisan sida weydiima aynu bal hadoogaano waa maxay dhaqan sidoo kale bal ka jawaabno waa maxay haybsoocu aynu isku dayno inaynu isbarbar dhigno haybsooca taban iyo haybsooca togan leanna haybsoocu ma wada xuma aynu isku dayno haddee haybsooca tabani dhaqan ahaan inuu bannaan yahay iyo in kale isla markaana bal hadda aynu ku eegno haybsooca togan halkuu dhaqanku dhiga halkee ayuu dhigay haybsooca togan marka waqtiguna waa kooban yahay xaaladuna waa urursan yihiin sheeko aada u qurux badan oo aan hayeyna waa jirtay laakiin bal markaan isku riixriixe ee isku xoorxooriye isku soo duuduubo waxaynu odhanaynaa dhaqanka soomaalida waxaa lagu sheegaa inuu yahay isu tagga 5 tiir oo waaweyn 5taas tiir oo isku dhisma isku dhiskoodana uu ka dhasho si ugu dhaqanku 5taa tiir waxa weeyaan afkan aynu ku hadlayno aan ugu horeysiiye ahabta oo ah diinta islaamka aynu haysano afka aynu ku hadlayno agabka inoo astaamaha ah iyo haddii aan laba ku sameeyo hidaha oo ah xeerku dhaqanka laftiisa sida loo wada noolaanayo sida wax loo wada cunayo sida wax loo wada yeelanayo maxaa inaga reeban maxaa inoo bannaan anshaxa iyo maaragtay ugu dambeyntii anshaxa oo ah haddii bixuma halbeegyada qaameerka iyo milgaha ee ku go'an sida hidaha loogu dhaqmaayo shoodkii ku jiro sariigashadii ku jirto basarkii ku jiro dhalaamadii ku jirto waxyaabahaas ku jiraan haddaba qaab dhismeedka dhaqanka haddii aynu nidhi waxa weeyaan waa sida loogu dhaqmayo dhaqanka laftiisa haddaynu nidhi wuxuu ka kooban yahay xeerar iyo dabaro quman oo ka yagleelan
falsafad cilmiyeysan dhaqanka Soomaaligu iskama jirsamine wuxuu ka yeegleelan yahay falsafad cilmiyeysan oo laga baaraan digay oo u qaybsan aragti lagu waayo arkay oo bulshada dhexdeeda ka dhacday iyo wax diin laga soo dheegtay ha ahaado diin dhow ama ha ahaado diin dheer sida ay ogtihiin marka la miisaamo dhaqanka Soomaaliga waxa la yiraahdaa diinta islaamka ee maxaan ku waraahday macaan wuxuu maaj gareeyaa in ku siman 86 87 inta yar ee dhimani waxay ka kooban tahay in diin hore laga keenay iyo in ka yagleelan waxa la yiraahdo sheeko baraleyda qudheedu waa wax laga keenay nololo hore oo markaa iminka aan shaqaynin oo kamida waxyaabihii ay diinta islaamku nasaxday inahaas oo isaga dhaqanka ku sii haray ayay isku ku kala gedisan yihiin marka la yiraahdo dhaqanku waa shakhsiyad character weeyaan meel taagan oo leh xeerkeeda nidaamkeeda iyo waxeedo dhan siiba ka Soomaaligu wuu doodaa wuu deeqaa wuuna dagaalamaa alashan uu hadlaa marka uu doodayo hadlayo wuxuu ku hadlaa suugaan sidaas darteed isaga oo doonaya inuu profile-kiisa sheego dhaqanku wuxuu yiri ayuu dhaqankeenu gobu ahaa guud iyo sararu lahaa xil iyo gudashu lahaa sidii geed meel ku yaal gun iyo baar buu lahaa dadkuna gacal iyo walaal gudboon isir wada dhashiyo sokeeyo la garabsadiyo gayaan xidid buu ahaa goolmoon isu baahanoo gacmaha lays haysto oo goos wadaag ku astaajirtiyo gal iyo samay buu ahaa halka marka ay marayso uu dhaqanku saa isu sheegay in afka uu ku hadlaana uu suugaanta yahay waxaynu eegaynaa ereyga haybsooc muxuu yahay horta inta aynaan dhaqan ahaan u gelin bal harta inaynu erey ahaan u gallo haybsooc muxuu yahay haybsooc waa erey lakab ah ama se minla ah oo isa saaran ka kooban laba qurub hayb iyo sooc sidaas darteed marka aynu hayb horeysiino markaynu hayb eegno haybtu waxa weeyaan waa absunsunka qofku uu tirsado awow ka awow oo kay abuuran ama se ka rakiban laba dhagaati oo la yiraahdo ab iyo abnaq dhagaatiga marka aynu abka eegno abku waxa weeyaan waa dhagaatiga ka sunsuma dhinaca aabaha ee awowga iyo mucuyga halka mara abnaquna waa dhagaatiga ka sunsuma dhinaca hooyada ee abti iyo halka awowgala marka xagga dhaqanka lagu miisaamay lagu eegayo dhiig iyo dhaleeya la yiraahdaa dadkuna way ku kala duwan yihiin oo waa xeerar kala duwan ayay adeegsadaan dhiigga iyo dhaleeyadu laakiin haddana saasay tahay dhaqanku wuxuu siiyay xuquuq siman oo isku mid ah sida marka ay sooc tahay ee aynu sooc ka hadlayno sooc de waa erey af Soomaaliya aad bay isugu macnayn mayno waa in hadii ay xukmay marka erey ahaan la macnaynayo waa in maartay de waa qoqobid waa dhinac isu xijin waa isa saarid waa intii islaaba israacin waa isugu waa waxay halkaas ayuu tagayaa laakiin marka la isu geeyo labadooda tan ee leeyahay haybsooc marka la yiraahdo wuxuu yeelanayaa laba aragtiyood oo kala duwan ereyga haybsooc baa laba aragtiyood oo kala duwan yeelanaya wuxuu yeelanayaa aragti taban oo qalloocda iyo aragti togan oo umman aragtida togan ee haybsoocu waa in dadka la isu raaciyo siyaabaha ay isugu qolada yihiin isugu isirka yihiin isugu jinsiga yihiin isugu shaqada yihiin isugu deegaanka yihiin oo wadaagta u yihiin iskaashiga u leeyihiin iskalkaalsiga u leeyihiin daawada u leeyihiin xabaaraha u yihiin xarig xidhka u leeyihiin xigtada insaa la isugu xidho weeyaan oo iyada taasi wax dhibaato ama waxa ka tafiirantaa haybta qofku uu tirsanayo sidoo kale dhaqanka Soomaaligana waxay ugu jirtaa si kale oo ah waxa ka dhasha xeerka tollimada oo maaragtay ah in ay looga faa'iideysto dhinaca garsoorka dhinaca sharci marinta dhinaca dawmarinta dhinaca iscelinta dhinaca maaragtay xakamaynta dhinaca mayal sugidda dhinaca af Ingiriisiga controlka looga faa'iideysto oo waxay yiraahdaan Soomaalidu nin tollihi waa xarigiisa sita calaashan cid ka qabata bulay garsoorkiisii wata ninku haduu tolleeyahay dhinaca taban marka laga eego waa in inta bulshada la tafniido dhibaato dhaliil loo baaro isla markaana dhaliisha jirta laga dhigo qofka haybtiisa dhaliisha jirta
iyo ceebta uu leeyahay inta kale dhan maaha inuu illa yahay maaha inuu laangaray yahay maaha inuu tuug yahay maaha inuu xaaduq yahay maaha inuu dhaliyagoys yahay maaha inuu laga dhigo ceebta kaliya qofku leeyahay in laga dhigo haybtiisa halka marka ay marayso waxa weeyaan bulshadu way ismaagtaa in la ismaago oo qofka la maago ama cidda la maago ama qoys la maago ama qolo la maago dhaqanka meel kagama sugnaa meel kagama jirto kaliya waxa weeyaan qaybta si xun u falka dhaqanka oo ka suurtowda qofkay ka suurtowda dhaqanku isagu waa xariir ma xumaado dhaqanku ma xumaado isagu waa shuruuc meel ku qoran xumaan ma taliso mana sargoyso mana yagleesho laakiin si uu dhaqanka qofka dhaqanka kan uu ku tilmaaman ayaa ama xumaada ama samaada marka waxaan haybsooca tabani wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay bulshadu ka keentay ee aan dhaqanka meel kaga qorayn laakiin iyagu ay samaysteen si uu dhaqanka markay joogaan ay sababtu tahay haddii iminka qofka la haybsooco aan maago ku caayo haybtiisa oo isla markaa u ergoodo oo aan golaha laygeeyo ku garheli maayo wax garah oo aan u helayo inaan qofkan gaabso dhaqanka kama helayo sidaas darteed waa waxaan sharciga dhaqanka meel kaga qorayn luuqyada la iskaga yiraahdaa iyo gidaarada dabadooda iyo marka la ismaagayo taana waxaan oran lahaa qolyaha la haybsoo cidda nagala joogta waardi ha u afwaayina iska celiya dadka bulshadii la haybsoocay hoos u dhaca dhaqaale ku yimid xagga tabcashada wax soo saar afar qodob baa tabcashada bini aadamka lagu soo ururiya waa tabcashada xagga dhulka tabcashada xagga shaqada iyo qofkan muruqiisa maalaya tabcashada xagga hantida maguurtada iyo tabcashada xagga maamulka ashqaasta gaadhay cadaalad darrada ka jirta xagga wada lahaanshaha khayraadka waddanka yaal bal waxaan ka horeynayaa ta dhulka halkan somalilan aynu joogno beelahan la haybsooco ee walaalaheena tuulo yarna allaha ka yeelee bal cadaalad darrada ka jirtaan idiin sheegayaa tuulo yar kuma laha halkaa taas waa mid laan ininka waa la tigi ama cadaalad darradii xagga wada lahaanshaha dhulka tuulo yar kuma leh oo ay ku magacaaban yihiin somalilan gobollada bariga haddaad qaybiso waxaa wada dega beesha dhexe qayb ka mida iyo harti gobollada galbeedka haddaad qaybiso waxaa wada dega dir galbeed oo samarool iyo ciise ay ka mid yihiin inta dhexe u buucdana waxaa dega isaaqii beelaha la haybsoocaa intaba way degaan tuulo yarna kuma leh halkaa cadaalad darradii wada lahaanshaha dhulka iyo khayraadkii dhaqaale ee dhulka ku duugnaa waxba kuma leh kow taas waa mid haddaan u soo noqdo cadaalad darrada ka jirta xagga fursadihii shaqo oo kale marka loo doonanayo aynu ognahayo fursadda shaqadu waxay ku xidhan tahay had iyo jeer alle meeshay taallaba public iyo privatka waxay ku xidhan tahay wejigiina wuxuu sii gelayaa hayb iyo qabiilaysi iyo isxulafaysi siyaasadeed halkaana waxwaa ku laayihiin oo waa ognahay marka haddaan is idhaahdo liis ka samee caawa ama mid ugu taabo cadaalad darrada khayraadka dhaqaale ee waddanka yaalla iyo wada lahaanshihiisa nuska ay ku leeyihiin beelaha la haybsooco ma soo koobi karayo idinkuna dhagahayd faragelinaysaa waxaan ka soo qaatay hortii wada lahaanshaha dhulka oo anigaa yidhi tuulo kuma magacawnaa malaabari dhaweyn baan arkayay degmo mise magaalo ay ahayd ceerigaabo ku taallo loo qoodeeyo loo istaagay ayaan midiyaa ka daawaday abidkeyntaan maqlayay way xagga faqriga xaggaas waa khayraadkii iyo waddanka wada lahaanshihiisii cadaalad darrada ka jirta labadaasaan tusaale usoo qaad xagga faqriga haddii somalilan faqrigeeda maanta la doonaya in la xisaabiyo tallaabada koowaad ee la qaada waxa weeye horta yaa faqiira dabadeetana qolyahan xogta inaga qoreen riboodada ka soo saara faqriga ku tacalluqa ka u dambeeyay 2019 haddaad eegto waxa faqiira bay yidhaahdeen dumarkii carruurta koow dadka laga tirada badan yahay laba haddaba ummadani dadkii kale yaa faqiira dumarkii carruurta koow ayaa bafurtin groupiska ah
kaalinta labaad yaa galay dadka laga tirada badan yahay halkaana haybtoodu faqrigii bay gashay xaggii hore cadaalad darradana one meter square somaliland ay ku leeyihiin oo magacooda uu ku qorayay ma jirto ama degma ay ku calaamadsan yihiin faqrigiina haybtii baa gashay taasina waa mid markaa faqri markaan leeyahay haybtiisii waa taasoo kaalintii labaad bay ka galeen innagu tolo faqiir ma nahay ha innaga lafteenu faqiir waynu nahay haddaad xisaabiso dakhliga qofka soo gala sanad leh kan u dambeeyey 2019 qaado soomaalida waxaa la yidhi from January to December waxaa soo gala $600 $600 waxaad u qaybisaa 360 cisho lunar yarkii baynu qaadanaynaa maalintii waxay ugu soo hagaagiyay dakhliga jeebada soo gala $1.60 caalamkuna wuxuu qofkii dakhliga maalinlaha soo gala jeebadiisu uu ka yar yahay $2 waa kufurti waa faqiir innagana waa 1.66 cent labadii $2 waxaynu ka hooseynaa around 40 cent meelaha inagu faqiir baynu nahay aniga idin hadlaya faqiira because daily income per capita waa $1.60 cent iyagu sidee yihiin markaa beelaha la haybsooca aniga $1.60 cent hadday ka soo galaan oo beeshii dhexe aan ka soo jeedo iyagu waxaa soo gelaya mala waa 60 cent way ka yariin 60 cent waa xisaabiyaano iyagu waxaa la yidhaha markaa faqrigooda absolute poverty baa la yidhahdaayo waa bilow aakhiro meel gaadhsiisa weeyaan halka anigu aan ka cabanaya $1.60 baa soo gala marka dhaqaale ahaan xagga dakhliga iyo wada lahaanshihi khayraadka waynu aragnaayo beelaha la haybsooca waxa weeye aad buu u baahaystay macallin ah waxbarashada ku dhex jiray jaamacadaha waan dhigaa iskuullada waan dhigaa meelaha kale tababarada iyo xaaladahan aad baan ugu dhex jirnaa xaqiiqatan intaan anigu hadda taagnaa ee aan xaaladda ku dhex jiray ilaahay bay tiisa tahay anu maan arag cid la haybsoocayo ama si gaara loo looga sheegayo institution fara badanna waa dhigay 12 institution kala duwan xaqiiqatan wax maan arag laakiin waxaan aad ogahay dadka ka soo jeeda beelahaas dadka loogu serviceka badan yahay weeye dadka loogu shaqada badan yahay weeye dadka loogu dhowrida badan yahay weeye waa dadka loo noqdo macallimiin ay saaxiibkay gaarka ah weeye waa dadkan aad u dhowrno waa dadkan soo dhaweyno waa dadkan ku aamino waxyaalo badan oo aanan dadka kale ku aamin karin marka ma aaminsan arrintaas inay jirto foobiyahaasuna uu aamin wadanka oo libaan aaminsanahay ay hadda dhamaatay baan u aragnaa oo sababtoo mar walba anagu wacyigelin baan ku sameynaa inaan segregation iyo bulshada wax la isku soo sababtoo aqoonyahanku ma aha dadka kala kaxeeyo dadka isu keeno